asalaamu calaykum asxaabta waxaan jeclaysay inaan niila wadaago filimka Rotten Sigis daawasho wacan iskana taxadara taxanaha filimka waxaynu aragnaa lamaano saaran baaskiil gudaha duurka Virginia. Saddex faradlu ayaa eegaya isagoo isqarinaya kadib wuxuu bilaabay inuu raaco wuxuuna raadinaa fursad ku habboon uu ku weeraro. Wuxuu fallaar ku dhuftay wiilka baaskiilka ayuuna ka dhacay. Gabadhu iyadoo walwalsan ayay u timid wiilka isla markaana saddex faradlu ayaa fallaar kale wiilka kaga dhuftay afka. Gabadhuna aad ay u walwashay waxayna bilowday inay ka cararto meesha iyadoo walwalsan. Tuus iyo cabri ayaa sariiq u dhigay gabadha wayna ku dhacday iyadoona ogeyn. Labaduba waxay kor u qaadayaan gabadha si ay u xanuunjiyaan. Dhanka kale saddex faradlu ayaa meesha yimid qoorta ayuuna ka jaray wiilka. Intaa kadib waxaynu aragnaa Danny iyo Tony oo saaran gaari. Danny iyo asxaabtiisa waxay rabaan inay aadaan dalxiis waxayna soo gaareen hoteelka taasoo ay doonayeen inay ku caweeyaan. Waxaa halkaa ku soo dhaweeyay laba ruux oo qaabilsan soo dhaweynta laakiin labaduba kuma faraxsana sababtoo ah waxay moodeen Danny inuu kaligii imaan doono. Waxaana sidoo kale aragnaa islaan da' ah oo doonaysa inay ka tagto hoteelka si lama filaana. Waxaynu aragnaa faas la soo gamay wuxuuna ku dhacay islaantii isla markaana waxaa goobta yimid Jackson kaasoo ku jibiyay qoorta islaantina halkaa ayay ku dhimad. Taas oo la macnaa qof walba ee doonaya inuu ka tago hoteelka ugu dambeyn la dili doono. Dhanka kale Danny asxaabtiisa ayaa la yaabay waxyaabaha qadiimiga ah ee yaala hoteelka sababtoo ah kuwaani waxay ahaayeen waxyaabo qaali ah. Habeenka marka la gaaray Jackson wuxuu soo aaday hoodka wuxuuna la kulmay saddex dad cunka ah. Waxaan halkan ka ogaanay Jackson iyo saddex dad cunka inay yihiin walaalo. Sidoo kale gabadha soo dhaweynta ay tahay walaashood. Subaxii xigtay Danny saaxiibtiis waxay soo aaday qaybta dambe ee hoteelka waxayna aragtay Jackson kaasoo dhiig ka nadiifinaya goob waana meesha islaanta lagu dilay. Si degdeg ayay u laabatay iyadoo aan la ogaan laakiin qaar ka mid ah asxaabta Danny waxay soo aadeen dukaan waxayna meesha ku arkeen goob lagu dhijiyay dadka la la'yahay. Isla markaana sarkaal boolis ah ayaa soo gaaray meesha wuxuuna ku dhijiyay sawirka islaantii. Jackson ayaa hub kala duwan tusinaya Danny iyo asxaabtiis. Danny wuxuu jeclaystay hubkaani. Danny wuxuu soo qaatay qaansadani. Jackson wuxuu Danny ku codsaday inuu u kaxeeyo ugaarsi. Ugu dambeyn Danny wuu aqbalay. Hadda labadooduba waxay soo gaareen kaynta si ay u ugaarsadaan. halka waxay ku arkeen deero. Jackson wuxuu Danny barayay si loo ugaarsado laakiin Jackson run ahaantii wuxuu barayay Danny sidii loo dilo dadka maxaa yeelay wuxuu niyadda ku hayay qorshayaal badan markii uu barayay sidii loo ugaarsado deerada. Sidoo kale saddex faradlu ayaa sarkaalka ugaarsanaya goob kale. Danny wuxuu dilay deeradii. Sidoo kale saddex faradlu wuxuu si xun u dilay sarkaalka. Dhinaca kale waxaynu aragnaa Danny saaxiibadiis oo walwalsan sababtoo ah Danny wuxuu u soo baxay ugaarsi isagoo la socodsiin saaxiibadiisa iyaguna sidaa darteed aad ay u walwalsan yihiin. Gaar ahaan saaxiibtiis Tony aad ay u walwalsaneed waxayna u dirtay mid ka mid ah saaxiibadeed inuu raadiyo Danny. Markuu uu soo gaaro meel kayna ayuu arkay ilcabarkii oo cunaya deerada dhimatay. Markuu arkay dhacdadaas aad ayuu u baqay wuuna cararay isagoo orday aadna u baqayo ayuu Danny ku dhacay. Labaduba waxay ku dhaceen togaani. Danny wuxuu ku dhacay sirqdii ilcabarka uu dhigtay waxaana qabsaday silig aad ayuuna u dhaawacmay. Danny wuxuu wacay saaxiibkiis Jackson halka ayuu soo gaaray. Jackson wuu caawiyay saaxiibkiis Danny ugu dambeyn wuxuu ku soo celiyay hoteelka. Dhan kale Jackson walaashiis Silly ayaa Danny ka tirtiraysa dhiigga wayna caawinaysaa isaga. Waxaa timid Danny saaxiibtiis Tony. Hadda Silly waxay ka bixaysaa qolka. Subaxii xigtay Danny wuxuu ku jiraa suuliga wuxuuna daadiyay dhammaan daawooyinkiisa oo dhan. Aslahan Danny wuxuu ahaa bukaan socod wuxuuna daawad u qaadan jiray si uu u dago waqtiga qadada. Danny wuxuu asxaabtiis u sheegay inuu joogi doono hoteelkan ugu dambeyn uu noqon doono milkiilaha hoteelka. Danny asxaabtiisa ma rabin inay sii joogaan hoteelkan waxay rabeen inay dib ugu laabtaan magaaladooda. Labadani waxay ka mid ahaayeen Danny asxaabtiis waana kuwa hami ka galay alaabta qadiimiga ee hoteelka. Waxayna ogaayeen inay jiraan waxyaabo badan oo qadiimi ah waxayna bilaabeen inay wax ka xadaan hoteelka si u helaan hanti badan. Waxayna gaareen meel qarsoon kaasoo ka furmay dhulka hoose. Waxayna galeen meesha si ay u ogaadaan waxa ku jiro waxayna hoos ugu dhaadhaceen dabaqa hoose. Halkaa waxay ku arkeen waxyaabo qadiimi ah. Sidoo kale waxaa aragtay Silly ayagoo halkaa jooga. In yar ka bacdi saddexdii dadcunka ayaa soo gaaray meesha waxayna madaxa ku dhufteen ninka dhulka ayuuna ku dhacay. Saddexdii dadcunka ayaa gabadha madaxa gacanta iyo lugta ka jaray taasoo markii dambe gabadha si naxariis daraa ugu dhimatay. Waxayna sidoo kale isku dayeen inay dilaan wiilka laakiin Silly ayaa ka badbaadisay. Waxayna ka codsatay saddexdooda inay ka tagaan halkaa. Silly waxay geysay wiilka qolkeeda ugu dambeyn waxay barkin ka saartay afka ilaa uu ka dhintay. Dhanka kale Danny waa la bedel sidoo kale daawooyinkii ayuu ka tagay wuxuuna bilaabay inuu farxad ku noolaado. Horey uma ahayn sidaan. Hadda wuxuu la kulmay Jackson iyo Silly. Jackson wuxuu weydiistay Danny
Dani inuu rabo inuu la kulansiiyo xubno kale oo ka mid ah qoyskiisa. Dani wuu aqbalay hadalkooda. Jackson iyo Celie waxay Dani usoo kaxeeyeen hoodka, waxayna geeyeen tuulo yar oo kayn ah, halkaas oo ay joogaan dad badan oo qalafsan, waxaana ka mid ah qoyska Dani. Jackson iyo Celie waxay daawo siiyeen Dani, waxayna u sharxeen wax walba si faahfaahsan. Dhammaan dadkani qalafsani waa dhiig-yacab maadaama ay kasoo dhaxleen awoowayaashood, laakiin Dani iyo Celie ma ahan kuwo ka dhaxlay awoowayaashood hiddahan. Dhanka kale, saaxiibka Dani ayaa dhegeysanaya ayaga isagoo isku qarinaya geedaha. Markaas ilcabarkii ayaa usoo dhawaaday. Ugu dambeyn wuxuu qabtay Dani saaxiibkiis waxa uu ku qaylinaya inuu caawiyo Dani, balse Dani ma maqlin hadalkiisa sababtoo ah waxaa ku jirta jirkiisa daawadii la siiyey. Saddex faroodlaha ayaa qoorta ka muday Dani saaxiibkiis, kadib dhiig ayaa bilaabmay inuu kasoo daato. Dadka halkaas jooga oo dhammi waxay bilaabeen inay dhiigga koobab u dhigtaan iyaga oo raba inay cabaan. Qof kasta wuxuu bilaabay inuu ku raaxaysto cabidda dhiigga Dani saaxiibkiis. Hadda hal koob oo dhiig ah waxaa loo keenay Dani. Dani wuxuu cabay dhiigga saaxiibkiis. Subaxii xigtay, Dani wuxuu kusoo noqday hoteelka. Saaxiibtiis Tony aad ayay u walwalsan tahay xaaladiisa kadib markay aragtay, waxayna Dani ka codsatay inuu ka tago hoteelkan uuna dib ugu laabto magaaladii uu ku yimid si uu ugu soo nasto. Laakiin Dani ma rabin inuu ka tago hoteelkan, wuxuuna u sheegay inay ayaga baxaan. Dhammaantood waxay aadeen dhanka jikada. Ugu dambeyn waxay arkeen qof jarjaraya xubnaha jirka bini'aadanka kadib kariyey oo cunaya. Dhammaantood aad ay u walwalsan yihiin hadda, laakiin intaynan ka tagin meesha waxay fiiriyeen qaboojiyaha, waxaana ku jira mid ka mid ah saaxiibadood. Markay arkeen tani iyagoo aad u walwalsan waxay bilaabeen inay ordaan, balse waxaa daba socday saddexdii dadcunka ah. Laba ka mid ah asxaabta Dani waa ay ka badbaaday iyaga oo ka baxsada meesha, laakiin mid ka mid ah ayaa la qabtay. Tuba ayay afka geliyeen oo biyo badani ayay ku fureen jirkiisana wuu u dilaacay. Hadda waxaynu aragnaa labadii badbaaday. Marka hore mid ka mid ah ayaa dabin ku dhacay, hadda ma ordi karo asaga, wuxuuna ku xayiran yahay meel. Saddexdii dadcunka ayaa ugu dambeyn asaga qabtay, madax ayayna kaga dhufteen faas oo isna halkaa ayuu ku dhintay. Dani saaxiibtiis Tony ayaa raadinaysa asaga, waxayna soo qaadatay qori, waxayna bilowday inay raadiso Dani. Ugu dambeyn waxay soo gaartay qolka hoose, halkaa ay ku aragtay Celie. Dani saaxiibtiis iyo Celiena halkaa ayay ku dagaalameen wax badan. Ugu dambeyn Tony waxay dishay Celie, isla markaana waxaa goobta yimid Dani, wuxuuna qoriga ka qaaday saaxiibtiis Tony, wuxuuna bilaabay inuu hubiyo Celie inay nooshahay in kale. Dani wuxuu weydiisay saaxiibtiis Tony inay ka cararto meesha. Tony iyadoo ordaysa, Jackson ayaa arkay, wuxuuna bilaabay inuu ceersado. Ugu dambeyn wuxuu qabtay Tony iyo Jackson labaduba waa ay dagaalameen. Ugu dambeyn Tony ayaa isha ka gelisay Jackson iyadoo kaashanaysa furihiisa, waxayna u dishay si naxariis daro ah. Kahor Tony intaysan ka bixin goobta waxaa meesha yimid Dani, wuxuuna qori ku qabtay saaxiibtiis Tony, wuxuuna rabaa inuu dilo saaxiibtiis Tony sababtoo ah waxay wax badan ka ogaatay isaga iyo qoyskiisa. Hadda Dani ma rabo inuu dhageysto hadalka saaxiibtiis Tony, isla markaana saddex faroodluhu iyo walaalihiis ayaa halkaas soo gaaray. Dani wuxuu saaxiibtiis Tony ka doortay qoyskiisa. Ugu dambeyn saddex faroodluhu wuxuu dilay Tony. Hadda sheekadu way sii socotaa, waxaynu aragnaa Dani oo maamulaya hoteelka qaybta soo dhaweynta, wuxuuna halkaa kusoo dhaweynayaa qoysas badan. Hadda waxaynu aragnaa saddexdii walaalaha ee dadcunka ahaa iyaga oo karinaya hilibka dadka. taxanaha filimkana halkaa ayuu ku dhammaaday. Haddaad ku cusub tahay channelka ha ilaawin inaad tiraahdo subscribe, share garee muuqaalka si uu u gaaro saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale tahay.